nin ayaa waxa uu soo martiyey nin ay saaxiibo ahaayeen. ninkaasoo ahaa nin aad u bakhiil ah oo waxba dhiibin, gacantiisana ay aad u adag tahay. ninkii ayuu soo dhaweeyey, waxa uuna u wacay wiil yaraa oo asagu dhalay. waxa uuna ku dhahay, kaala wiilyahow, waxaan kaaga baahanahay inaad maanta doonto hilib kiisa ugu fiican. waxaa ii imaaday qof agteeda qaali ka ah oo aan jeclahay, waana saaxiibkaygii hore. wiilka ayaa wuxuu yidhi, haye aabe, amarkaaga ayaa jiro, waan soo gadayaa hilibkiisa ugu fiican, hadda ayaan baxayaa. wiilkii waqti badan markii uu maqnaa waa uu soo laabtay asagoona wadin wax hilib ah. aabihii ayaa carooday, waxauna ku yidhi, aaw hilibka ku darsaday. wiilka wuxuu dhahay, waxaa u tegay ninkii dhiblaha ah, waxaana ku dhahay, waxaad siisaa hilibkiisa ugu fiican. waxa uuna yidhi, waxaan ku siinayaa hilib subag oo kaleeta ah. waxaan dhahay, hadduu arrinka sidaas yahay maama suga doonto. waan soo baxay dukaanlii subag ayaan u imaaday, waxaana dhahay, subagkiisa ugu fiican sii. waxa uu yidhi, waxaan ku siinayaa subag sida malabka oo kaleeta ah. waxaan dhahay, hadduu arrinka sidaas yahay ma hadda malabka gadatid. waxaan soo aaday ninkii malabka gadaayay, waxaana ku dhahay, waxaad siisaa malabkiisa ugu fiican. waxa uuna yidhi, waxaan ku siinayaa malab sida biyaha saafiga oo kaleeta ah. waxaan dhahay, haddeeba saas tahay arrinta, biyo saafi xaafadiina ayuu yaalaa, waxaad lacagta u khasaarinaysaa biyaha saafiga ninkaa la siiyo. waxaan soo baxay aaba, adiga ayaana kuu imaaday, lacagtiina waa tan waan wadaa. aabihii aad ayuu farxay, wuxuuna ku yidhi, waxaad tahay wiil caqli badan oo fiican, balse mid baad ku khaldan tahay. wuxuu dhahay, waxaad halaagtay kabahaagii sababtoo ah dukaan kale aadaysay. wiilka ayaa yidhi, arrintaas aaba ma aysan dhicin, waxaana qaatay kabihii uu lahaa ninka noo imaaday ee martida noo ah. aabihii ayaa aad ugu farxay wiilkiisa waxaas uu sameeyey oo baqiilnimo ah. ninkii ayaa maqlayay oo martida ahaa, warmiyaadan maqlin xadiidkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee dhahayay, السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار. saaxiib, waxaan kuu waday mashruuc noloshaada wax ka bedeli lahaa, balse adigu uma qalantid. bakhiilnimadu mar walba qofka saaxiibka la ah waxay ku hogaamisaa meel xun. halkii ayuu ninkii cunugii ku ooyeen inuu ku waayay mashruucii. dabcan beriyahan si fiican oo lama socotaan, waxaan idinka codsanaynaa inaad sidii hore aad noola socon jirteen oo noola socotaan. kommentiyadiina lama arko, like haba sheegin, fadlan sidii hore aad noola socon jirteen noola socda. like-ta hadda ha hilmaamin, commentigaagana muhiim ayuu u yahay. dhiirigelintana waa dhankiina, fadlan ha hilmaamin like.